Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada dhaqanka beri waxa saaxiib ahaa jiir sakaaro tuke iyo diin waxay ahaayeen saaxiibo habeen kasta isugu yimaada meel cayiman oo ku caweeya oo mid kasta uga sheekeeya dhaqankooda iyo sida ay u nool yihiin. Habeenada ka mid waxay waayeen sakaaradii aad ayay u welweleen mid kasta waxa uu yidhi anuu ma arag xalay ayay ugu dambeysay. Waxay bilaabeen inay baadidoon tagaan oo mid kasta uu doono saaxiibadood. Jiirkii waxa uu ka baadhayay meelaha yar dhowdhow isla sidoo kale diinkuna waxa uu ka baadhayay meelaha dhowdhow. Tukihii waa uu tuulay waxa uu soo maray meel kasta. Mar dambe ayaa uu arkay sakaaradii oo ku jirta dabin ay u dhigeen dad ugaadhsata ah. Waxa uu ku yidhi anuu kaama saari karo dabinka laakiin waxaan u tegaynaa saaxiibadeen oo aan u yeedhayaa. Tukihii waxa uu soo noqday waxa uu yimi labadii kale waxa uu ku yidhi waxaan arkay sakaaradii oo ku jirta dabinka halay soo badbaadinay. Way soo yaaceen saddexdood waxa u yimaadeen sakaaradii. Jiirkii ayaa markiiba ilkiisii afka badnaa kaga jarjaray xadhiggii ama dabin. Ninkii ugaadhsatada ahaa ayaa yimi waxa uu arkay sakaaradii oo laga furay dabin aad ayaa u xanaaqay waana uu ku soo cararay. Tukihii isla markiiba waa uu duulay sakaaradina waa ay iska carartay. Jiirkii waxa uu galay hog yaroo meesha u dhowaa. Ninkii waxa uu qabtay diinkii waxaana uu ku riday bac ama kiish uu sitay. Waxa isu yimi jiirkii tukihii iyo sakaaradii waxa ay ka fikireen sidii ay u soo badbaadin lahaayeen saaxiibkood diin. Tukihii waxa uu yidhi waxaan hayaa fikrad fiican oo aan ku soo badbaadin karno saaxiibkeen. Waxa uu ku yidhi sakaaradii adigu waxaad iska dhigtaa sidii wax baktiyay oo kale anna waxaan iska dhigayaa sidii mid ku cunaya oo kale. Markaa ninka ugaadhsatada diinka waa uu dhigayaa jiirkuna markaa ka soo furfura xadhigga. Ninkii inta uu diinkii dhulka dhigay ayaa uu soo cararay waxa uu sidhi qabso sakaarada. Markii in yar uu soo jiray ayaa uu tukihii iska duulay. Sakaaradina intay kacday ayaa ay iska carartay. Isla markii waxa soo cararay jiirkii waxa uu yimi diinkii oo ku jira bac waxa uu ka jarjaray bacdii. Isla markiiba diinkii waa uu cararay waxa uu dhex galay dhir waaweyn oo aan laga soo qaban karin. Sidaa ayay ku badbaadeen saddexdoodiba iyagoo wada faraxsan ayaa ay bilaabeen inay damaashaadaan oo ay dabaaldegaan.